السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي دواني سلام ميل كستا جوجتين أدونك وانيقو فرحية حسن شانالك ايقلا سعودتي وفرحية فلوق ما انتو حايلي جوغو وهانيقو محمد داهر على سيدي يا أني على سيدي واي عاو وحا اسكو صورة عنا ميشان فديسان وحير ماهن إن شاء الله وحا كفايدي دونتين وحانا واي وحاس عوان كودا بربركا قويسسكا burburka qoysaska maxaa keeno ama maxaa sababa in qoysas dhisan burburaan isku faraxsanaa ay burburaan dhibaato ka dhaxdhacdo qoysku burburo xawaankan taas oo kale ku saabsan yahay marka burburka qoysaska wax badan keeno qaabo badan ay u burburaan isfahmo way u burburaan dan badan ay u burburaan laakiin zaid u badan yihiin bariyaan waxa maqlaysaa gabdho yaryar oo hadda la guursada da' 2-3 iska dhaloo la furay waxaasaa ka hadli doonaa dhiirigelin yarna waa ka bixin doonaa soo maxamed su'aalo weydiinaya hasan uga jawaaba anna way weydiin doonaa insha allah soo ka bogasho wacan maxamed horuu soo gal barnaamijkeena waxaa rabaa inaad su'aalaha waa ogtay mawduuca ka hadleyno inaa hal lagu kala dhigtid oo nooga jawaabtid waxyaabaha burburka qoysaska keena kan ugu koowaad wiil iyo gabar markay isguursadaan ayagoo isku faraxsan isguursadaan kabacdina wax yar markay wada joogaan ay isfuraan ama qoyska meesha ku burburo maxaa ka dambeeya ilmihii meesha ku dayacmayaan horta waa mahadsantahay farxiyo soo dhawaada khiyaarta waa mahadsantihiin waxa waaye wax yaroo dhiirigelin baan iska wadnaa oo isleenahay familada Soomaaliyeed inay familada Soomaaliyeed ay jiritaankooda sii jiro burburka iyo khilaafka iyo kala taguna wuxuu leeyahay ciqaabtiisa ma fiicno wax badan oo dhibaato ay u leeyahay marka maxaa keeno maxaa dhibaato ka dhalan karo iyo maxay lagu daaweey karaa saddexdaas qayb ayaan u kala qaadaynaa marka koowaad haddii aan ku bilaabo maxaa keeno burburka qoyska inuu dhaco kow maxaa keeno aniga ahaantayda dhowr factor waaweyn ayaa jiro balse waxaan ku qiyaasi lahaa oo maxaa la dhahay marka koowaad u kala qaybin dhowr nooc horta waxaan is dhihi karaa marka koowaad ayada oo degdeg oo jiro degdegaas oo ah ayadoo la kala fiirsan oo guurka laga fiirsan maxaa la dhahay ama aan nolol la soo dhisay qurux badan la soo waday geesaha dhan laga soo habeeyay meel fiican la keenay dadka la marsiinaa aan isguursan isku soo bood oo dhaco mararka qaar way timaadaa guurka way keentaa burburkiisa iyo dhibaatadiisa iyo in labada qof aysan marka hore jacayl soo abuurin oo iyagoon is jeclayn ama la isku daro ama la isku qasbo ama maxaa sidii waalidiinta Soomaalida ay ku qasbi jireen gabdhaha iyo wiilasha maxaa taasoo kale way keeni kartaa burbur inuu yimaado ilaa hadhow waxay noqonaysaa waxaan isfahamsanayn oo meel isku keenay geel iyo ari meel isku keenay ay noqonaysaa isma qaadi karaan isfaham weynayaan taasoo kale factorkaasoo kale wuu keeni karaa waxaa kaloo keeni karo mas'uuliyadda in dadka labada qof kamida oo irresponsible inuu noqdo oo mas'uuliyad darro ay ka muuqato sida for example ninkii oo kale inuu familkiisii u dayaco dayacaad ka timaado oo iska taxadaraynin oo iska kaygaraynin oo maxaa u daran maxaa u fiican xagee u wada oo san qiyaasin oo daraskaas oo san ahayn oo san aqooninba jihadii loo dhaqaaqay ama gabadha xageeda ay irresponsible ay noqoto oo maxaa la dhahay ilmihii daryeelkooda musayga asaga laftirkiisa ama maxaa la meeshan joognaa musay loo yaqaanay ayada xaajigeeda daryeelkiisa iyo ka taxadarkiisa iyo wanaajintiisa iyo maxaa la dhahay wixii oo mudnay oo ka helin inta badan way dhici kartaa oo marka qaar dumarka waxa dhici karo buuq iyo qayle iyo waxaan loo baahnayn xoogaa iyo xasarad iyo inta badan ku jiraan iyo marka qaar isbedelada yimaadana ay keenaan marka responsibility-ga waxa muhiim responsibility-gaas oo dhinacaas aan isleeyahay xoogaa in la dayacay ayada ruuxeeda labada dhinac way ka imaan kartaa labadaba ayadana way keentaa waxaa kaloo oo keeno dulqaad yarida in labada qof
isku dulqaadan waayaan. Waxaa Soomaalidu waxay tiraahdaa laba wada socota haddaa aragto qof dushiisa lagu socdaa. Marka labadii qof hadday isku soo aadin laba qof oo mid dul yar yahay oo dulqaad yar yahay midna uu dulqaad badan yahay, waxaa dhici karta in qoyskaas uu sii dhisnaado oo qofka dulqaadka badani oo wado qofkan kale uu sii wado asagoo uu jiido oo dushiisa lagu socdo. Laakiin dhibaato waxay ka dhalanaysaa maalinkii laba dulqaad yar oo mid walba midka kale ka dabeecad xun yahay oo mid walba midka kale ka xanaaq dhow yahay ka xanaaq xun yahay ama ka akhlaaq xun yahay isku biiraan isku yimaadaan, definitely way dhici waxa waaye wax oo degdeg burburka guriga ku imaanaya. waxa waaye ilaa labada qof haddaan isku dulqaadan adduunyada iyo wax kasta oo socdaan waa dulqaad. nolosha dulqaaday rabtaa, qoyskii familka dulqaaduu rabaa, aad u weyn wax kasta aad markaa dulqaadatan maxaa la dhahay ka guulgaaraysaa. khaasatan wiilasha waxaa loo baahan yahay inay aad u dulqaataan oo dumarku ayuu dulqaadkooda aad u yaryahay, ma fara badno. ama xaalad jirto markaas ayaga haysato awgeed ayaa keeni karta inaysan dulqaadan, ama qaab ilaahay u abuuraa dhici karta inaysan u dulqaadan. laakiin wiilasha ama ragga ayaa loo baahan yahay inay dulqaadka aadka u weyn oo ayaga xaggooda ka yimaado, maadaama ay rag yihiin, responsible ay yihiin oo ayaga mas-uuliyaddii saaran tahay, ayagu ay wax kasta mas-uul ka yihiin. waxaa la rabaa ayaga inay inta badan aad u dulqaataan oo dumarka inta ay u dulqaadanayaan ka badan ay dulqaadanayaan. waxyaalo fara badan way ka imaanayaan xagga dumarka. waxaan dhihi lahaa wiilasha aad u dulqaata, xanaaqa yareeya, la tirsiga yareeya, hala tirsanina dumarka. odayaashii hore oo caqliga badnaa waxay dhihi jireen dumar ninkii dhaadhaajiyo ilmo kama dhalo. haddaad marka dhaadhaajisin oo waxay dhahdaan waxay kala tirada ugu jawaabtid oo jawaabta ku tahay teeda kale aad siisid kama guulgaaraysid ilaa maxaa la hayaa ama gurigaada ama ilmahaada ama reerkaada fashil ku imaanayo. waxaa waaye inaad adiga dulqaadatid, aadan la xifaaltamin, aadan maxaa la hayaa ka ficil qaadan wax kastay samaynayaan wax kastay dhahayaan, symbol ka soo qaadatid ayaa loo baahan yahay, faraha ka qaadid. dulqaadkana waa dhinacaas oo waxaan dhihi karaa dhinaca dulqaadka aad iyo aad ha loo badiyo. haddii la dulqaato duruuf kastoo timaado ama isfaham darro markii hore laisku guursado ama laisku guursani, duruuf kasta wax kastoo yimaado haddii dulqaadku uu taagan yahay waxaas reerkaas waa sii jira, burbur ma imaanayo. waxaa kaloo kamid a oo aniga ahanteyda ay ila tahay dhinaca dhaqaalaha oo asagana wuxuu keenaa burburka qayb weyn ayuu ka yahay. oo for example kasoo qaad haddii markii hore laisku guursaday qaab fudud qof dad kale ugu tiirsan yahay ama nolosha oo haysta markaa iska hooseyso ama shaqaale oo kala haysan waxaa dhacayso markaas markii gabadhii isguursadaan waxa la sii jiro noloshii socotay inay sii socon weyso, noloshii socotay markaa jirtay inay sii jiri weysaa dhici karto. oo markii dhowrka beriyo hore wixii la haystay la isticmaalo ama maxaa la dhahayay wixii la isku qanci karo wiilkii gabadha wixii qanci karo dhan la isticmaalo, kadib waxaa imaanaya runtii noloshii runtaha in laga daba tago. noloshii runtaha markay bilaabato tii xaqiiqda ay bilaabato marka meeshaas dhexdeeda gaab ayaa ka imaanayo. waxaa dhici karto meelaha wadamada lagu nooliyo oo kale ama Soomaaliya ha ahaato ama qurbaha ha ahaato ama meel kale ha ahaato, waxaa dhici karto in noloshii ay aad u sareyso. guryaha la kiraysto markay tahay nolosheedu aad u sareyso, nolosh caadiga saanarka lagu nool yahay. qofkii dadku waa bini'aadam, laba qof ay noqdeen waxaa waaye share ayay noqonayaan oo laba qof culays kasta imaan karo, u baahan caafimaad haday ahaato guri haday ahaato culays fara badan imaanayo. waxaa imaan kara caruur markay timaado ay culayskooda ayaguna wataan oo laga taxadaro ayaga caanahoodii maxaa la dhahay wax alla waxa ay u baahnayeen isbitaalkoodii caafimaad daawadii wixii wax fara badan oo adiga markii hore gaarin waxaa laga yaabaa in maamadii oo gabadha xaaskeed mas'uuliyadeeda laga soo bixi waayo meeshaas oo ka bilaabo. marka waxaa dhici karta dhinaca dhaqaalaha saas awgeed in dhibaato u timaadana way dhici kartaa oo dhibaatadaas lagu kala tago. dee meeshaan wadamadan Afrika inta badan gabdhaha Soomaalida waa loo shaqeeyaa, ayagu ma shaqeeyaan. kuwa qurbaha jooga waxaa malaynaa
ninkana wuu shaqeeyaa raggana wuu shaqeeya ninkiina wuu shaqeynaa gabadhiina way shaqeynaysaa kabacdi waa laisku imaanaa waxbaa laisku darsanaa noloshii saasaa loo wadaa marka waxaa waaye qof walba dhinaciisu ka kaaba meeshan laakiin gabdhihii waxaa waaye ayaga ma shaqeeyaan biil sug waaye waa waxay caadaysteen waa dhif iyo qalil marka waa waxa ayagu ay jecel yihiin in loo shaqeeyo maxaa la dhahay raggii uu soo shaqeeyo ayagana gurigii iyo mas-uuliyaddii guriga ay ka shaqeeyaan inkastoo aysan xumayn oo aniga ahaantayda ilama xumo waa dhiiragelinayaa dumarka waxay haayaan shaqo aada u culus ay haayaan markii la yidhaahdo guriga shaqo aada u culus ay haayaan waxyaalo fara badan oo qofkii markuu soo shaqeynayo uusan ka bixi karin dhinaca kale guriga ay haayaan carruurtii ha ahaato daryeelkii kale guriga ha ahaato wixii waxa waaye ninka markuu soo shaqeeyo habeenkii gurigiisa u yimaado gurigii iyo wixii ilmihii dhamaayo isi saaran oo qurux badan markuu yimaado waxa waaye uu deganaanaya marka nolol waxay haayaan muhiim ah oo ubadka barbaarintiisa iyo waxaas waxyaalo fara badan ay hayaan oo qof walba oo ama wax ah ama wax uusan ahaanin ama caqli ha lahaa ama caqli uusan ahaanin wuxuu raba ha ahaadee hooyaa soo barbaarisay marka dhinaca guriga waxa waaye waa aad iyo aad muhiim waaye gabdhahan ku bogaadinayaa marka dulqaad dhinacaas dhaqaalaha way keeni kartaa oo labadii qof oo markii hore maxaa lahay aan tabar badan ku taagnayn markay is helaan in ay kala boodaan oo wiilkii markuu arko inuu wixii culeyskii wadi waayo oo responsibility reerka uu kasoo bixi waayo waxyaalihii waajibaadka looga baahnaa inuu yidhaahdo oo door bido in gabadhii asugu ay kala tagaan oo qof walba goonidiisa u noolaado ama familo kale lagu kala noolaado ama wiilka ha iska taariyo ama meel kale ha iska aado ama meel kale shaqaha u raadsado wax markaas ay kaafinayo culeys fara badan dhinacaas ka yimaada dhaqaalaha dhinaca dhaqaalaha aada iyo aad ayay qoysasku ugu burburaan kuwo badan oo dhismi lahaay oo laga yaabo inay inta dhismaan ay ilmo badan dhali lahaayeen ummadda kordhi lahaayeen populationkeeda waxyaala fara badan soo kordhi lahaa wax badan isku fahansan dhaqaalihii ayaa aad iyo aad u ciilahay waxaa waaye meesha joogaan waxaa laga yaaba aysan shaqaynin ayay isku kalsoon yihiin isjecel yihiin dad fiican yihiin laakiin dhaqaalihii guri lagu yeelyeeli lahaa isku guursan lahaa nolol lagu bilaabi lahaa caruur lagu dhali lahaa steebyada nolosha lala jaanqaadi lahaa waxaa laga yaabaa inaysan haynba marka dhaqaalihii dad badan oo dhali lahaana way baajiyeen oo dhabarkooda weli carruurta ku jiraan kuwa badan oo isguursadana way kala dirtay dhaqaalaha awgeed way kala direen nolosha markaas lagu nool yahay oo aada iyo aad udhib badan oo cadiid oo ah oo meel kastaba hala joogay ama qurbaha hala joogo ama soomaaliya hala joogo meeshii la joogaba waxaa waaye nolosha ayaa aada iyo aad qaali meel kasta u ah dadka wax haystana waa dadka odayaasha ah ee duqoobay marka dadkii duqoobay ayaga maahan kuwii wax dhif iyo qaliil lagama hadlaayo naadir wax yar lagama hadlaayo dadka badanaan ka hadlayna marka noloshii ayaa waxay noqotay mid aada iyo aad qaali u ah odayaashii wax haystana waxa waa iyagii ku kooban tahay dadkii populationka soo kordhi lahaa oo populationka wiilashana shaqo la-aanna hayso ayagoo wax bartay jaamiciyaal oo haddana shaqo la-aana jirto kuwii wadanka jooga ha ahaato kuwii qurbaha jooga ha ahaato xarkiisa wiil jaamacad heer sare kasoo gaaro oo shaqa u qalmin qabanayo waxaasna waxaa keenaya waxaawaa shaqo la-aanta jirto haddii wax taakule la siin lahaa meel iska soo bixin lahayn waxaawaa inuusa haysanina laga yaabaa marka dhaqaalaha waxaawaa wax aada u muhiim ah waayo steeb kasta aad qaadaysid haddaa inta gaari inaad ka raacdi rabto xukaana waa lacag la-aan ah ma jiraan marka waxaawaa adduunka saas waay gabadhi ayadoo xataa lacag sheeganayno dheheen intaas ha laga bixiyo laakiin waxaawaa muhiim ah gabadha inta guri loo sameeyo guri lasoo geliyo biilkeeda la siiya haddee maanta uur yeelato hooyooyinka markay uur yeeshaan waxaawaa aada isku bedelaan dabeecad haddii ahaan lahayd wax kasta haddii ahaan lahayd ninka inuu samraa la rabaa marka dhibaatooyin badan oo dhaqaalaha jiro waxaa noogu daraysaa maxamed dhaqaalaha markaa kasoo gudubno may dhinaca dhaqaalaha markii laga yimaado waxaan soo sheegnay in marka hore jacayl aan isku guursan kow in responsibility ama mas-uuliyadda guriga oo laga soo bixi waayey inay keento labo waxaan kaloo sheegnay in dulqaadyarida oo iyadoon laisku dulqaadan inay keento burburka saddex midka afraad oo ahay dhinaca dhaqaalaha in guryaha ay ku burburaan dhaqaala darrida oogeeda ee dhinaca dhaqaalo ee aad iyo aad factor weyn maxaa lahay burburisa guryahan uu yahay waa afartaas bointi ayaan isleeyahay inta muhiimka way yihiin waxyaala fara badan kala jiro
inta laakiin ani ahaantayda aan qiyaasayo waxyaalahaasa u badan. marka haddii la yiraahdo yaa sababo guriga burburkiisa wiil iyo gabar yaa sababa iyada mawduuc kale waay, laakiin insha Allah mar kale aan ka hadli doonaa. waxaanse aan aad iyo aad u bogaadi lahaa in dhinaca dulqaadka aad iyo aad loo badiyo. dhinaca dulqaadka la isku dulqaato iyo sabarka. dulqaadka iyo sabarku waa isla waqtigu dulqaadka aadka muhiimku yahay markay hooyada dhasho markay walaac tahay ee xaalad isbedel ay ku jirto, haddii ahaan leed dabeecadeeda, haddii ahaan leed jismiyadeeda, haddii ahaan leed wax kasta appetite-ka ka xumaado, haddii ahaan leed inay iska kakarahsato adoon waxba ku sameyn. marka wiil yar oo xogaa cadaata iska fudfududa markaas le ugu horeeyo deganaan lahayn oo fikirayn oo aad mas-uuliyadan ku saaran waxay tahay aad ogeen xaaladna anay ugu qeylaaday ma dhalinay mafaat waa la tirsanaysaa. taasna waxaa burburka koowaad meesha ka imaado. midda labaad hooyooyinka markay dhalaan waxaa waa nimanka xoogaa isbedelaan faa'iidaystaan ayadana. taas waa mawduuc kale. waxay la tahay dhalmama laskuma nacee waa laisku jeclaadaa, oo markii xaaskaada cunug ku dhasho ama uur ku yeelato waxa ugu badan lagu farxa waaye oo farxad u geliyo. taas laskuma nacee laakiin dadaa waxay u isticmaalaan negative oo ka faa'iidaysto fursadda. ma jiri karto. adinka waxaa u taqaaniin in laydin naco wax kale u taqaaniin waa mawduucyo kale fara badan hadda ma ka hadlayno. so marka laakiin aniga waxaan dhihi lahay guryahaasay u jiraan dulqaadka la badiyo. waxaan imaahaynaa mawduucii kale ee ahay taas waa waxyaalaha sababo in guryuhu burburaan. maxaa dhiba oo ka imaan karo? maxaa dhiba oo ka imaan karo? mawduuca labaad aniga ahaantayda waxaan is dhihi karaa dhib fara badan ayaa guriga burburkiisa ka imaanaya. saddex qof kaasna hal qof oo aad u saameeya maya taas oo imaan doonaa. laakiin saddex qof ama laba qof markay dadku yihiin ama cunug kale ay dhalaan saddexdooda ama afarba ama shanooba waxay noqonayaan qoys isku asturan oo meel degan ayagu isku asturan oo wax kasta waxooda dhan ay is saaran yihiin. midba midka kale baahidiis daboolay. maalinkii uu guriga burburo marka maxaa dhacay? guriga markuu burburo waxaa dhacayo gabadhii xaaska ahayd hooyadii inay gooni u cidlowdo, gooni u dayacanto, waxyaalo fara badan oo dhan ay ku dhacaan dayaca. ama dhinac kastaba ha ahaato inaan falanqeyn hadda muhiim maahan. dhinac kasta inay u dayacanto, dayac ku yimaado. caruurtii sidoo kale inay dayacmaan oo aysan agoonna ahayn habarana aysan ahayn, laakiin labadiiba aysan haysan. ama habartii la joogaan oo odagiisa haysan, ama odagii la joogaan habartiisa haysan. in taas dhibaato ka timaado oo ilmihii ay dayacmaan oo daryeelkii labada family labada waalid mid uu meesha ka baxo. daryeelkii labada waalid ama mid meesha ka baxa ama labadoodiiba waxaa dhici karta inaysan xoog uga soo bixin. ila ma buuxi karaan moogtahay maxaa la responsibility hal qof ma buuxi karo. marka qof maqan yahaana dhinaca kale wax ka maqan yihiin ilmihii markasta waxbaa ka maqan. ilmihii oo gooni u dayacmo, gabadhii maamada gabadha waxaa ka daran ninkii oo gooni u dayacmaasna. gabadha ninkaasay waxaa naagu isku guursanaya, gabadha nina isku guursanaysa. laakiin waxa koowaad oo qudada ku dhaceyso dayac ku dhacayo oo ciil dareemaya ilmaha isciilkaambinaya. marka hooyada nin iska guursato aabihiina naa kale iska guursada, ilmihii waxay ogaanayaan ninkan guriga jooga inuu aabahood ahayn. xataa haddaa wax kasta hooyada dee u sameynaysa ay la joogaan qudaday dareemaya. hal garabaa ka maqan, farxadii aabahood ku haysteen kuma haysanayaan. waxaa laga yaabaa hooyada xataa ilmaha inays u ogolaanay markay ninkan ma u ogolaanaysa ninkan uu dhibsanaya is leedahay. ninkii oo ilmihii laga celcelinaa ilmihii qudad inay dareemayaan fahamtid. meeshaas aniga waxaa hooyadii aabba inay ku dayacmaan dareemaya, laakiin wax ku dayacmaayo oo qudada ka qaadayo oo ciil iskaambinayo waa ilmahaas yararka. marka hooyo aabba kastana marxalad kastay ku sugan ilmahooda inay fiiriyaan. waa ayaka dhib kasta isku qabaan, ilmaha muhiim ah ilmahooda inay fiiriyaan. haa sax meeshaas uu kala raayi duwanahay dhib ma lahan. waxaa waaye aniga waxaan aaminsanahay saddexda qayb in la dayacmaayo oo dhibaato imaanayso oo qof kasta oo goonidiisa u dayacmaa. qofku markuu xaas yahay oo meel degan yahay asturan yahay waxaa waaye laakiin labada qof xaasas kale kala samaysan karaa Soomaaliya. maya haddii kala samaystaan xataa daas in la samayn doono yaa wax mustaqbalka aan la dareemi karin moogtahay. inay samaysan doonaan xataa lama ogo, laakiin midka dhisan un baan ka hadlaynaa maxaa isuusa ku burburin. marka waxaa weeye qof kasta oo xaas oo meel joogo tiqsi inuu ugu dhaco waa adag tahay. laakiin markuu
meel bannaan oo bannaanaado waa weel caana ku jiraan oo afka bannaan oo kale tiqsi kastaa ku dhacaa waa dhibaato badan tahay taas oo kale ma asturnaanayo macnaha oo daboolkii kore ayaa ka maqan daboolkii dabooli lahaa labada marka saddexda qeybba waa loo dhibaatoonayaa oo dhibtu inta badan ilmaha baa soo gaarto iyaga yar oo markaas dhibaatadu inta badan ku dhacaysaa ilmaha aad ugu dhacaysaa dhibaatadu laakiin dhibaatada ilmahaas ku dhacayso mid lamida waalidkiina way ku dhacaysaa marka horta dhibaatadaas way ka imaan kartaa waxay imaan karto maxaa la dhahay cadaawada imaan karto labada qof markii la kala tago oo dhibaato ay haddii xataa dhibaato lagu kala tegin cadaawada imaan karto oo jacaylkiia go-ayo waxaa go-ayo macmacaankii socday waxaa imaan karto ilmihii laisku dagaalo waxaa imaan karto kala jijiidasho waxaa imaan karto ku kala sheekeyn iyo dhibaato dad loo waxaas eray iyo uu soo galo guriga eraya imaan karo waxaas dhibaato aada u fara badan imaan karto oo ilmaha moralkoodii jabayo adii waxaan la qiyaasi karin ayaa imaan karo hal mid laakiin oon rabo inaan qodobadii hore oo guryaha ay ku burburayeen oo afartahay aan sheegno hal xaba inaan ku daro qodobadaas waxay ahaayeen in iyadoon jacayl la isku guursan kow iyo in iyadoon isku kalsooni macnaha la guursan labo in aan mas-uuliyadda laga soo bixin saddex in qofkii uusan noqon qof dulqaadka isku dulqaadan waayo iyo afarti muxuu ahay in dhinaca dhaqaalaha laisku dagaalo ama dhinaca dhaqaalaha guryihi ay ku burburaan waa saddex soomaha afar soomaha waxaan ku dari lahay midda shanaad ee iisoo raacda waxay tahay isku dirka guryaha qaarkood isku dir ayaa dumiya laba qof dada ka dhex shaqeeyaan jacayl xaasid ma waayo meesha la dhihi jira waay waxaa waay marka laba qof kasta ee guri haysto ee dhisan meel degan ee qurux badan markii la arko cadow yeelanaya markastaba cadow rasmiya yeelanaya dad xaasidiinaa jiro qalbiga ka xun meel kasta ka xun oo jeclayn in noloshaan ay sii jirto maadaama ayaga aysan noloshaas haysan waxaa jirto maxaa lahay way ka xun yihiin marka dadka isku dirka ayaa inta badan keeno inay guryuhu burburaan inta kale oo midda shanaad aan ku darayo isku dirka iyo namiimnimada iyo labada qof oo loo kala sheekeeyo iyo waxaan jirin oo laga sheekeeyo iyo guriga dhisan oo la damco in la burburiyo oo xaasinimo adugu haddaad haysan muxuu kan u haystaa iyo waxa xiqdiga iyo dhibaatada waxaas ayaa keeno oo dumarka inta badan u badan yihiin dumarka waxaa waaye isku dirku ma fiicno joojiye oo idiin sheegaya isku dirka joojiye waxaa waaye markii hore waxaa dhici jirtay maamooyinka waaweyn in laga sheegto oo la dhamaamaynka waaweynaa guryaha dumiyada qooshinka oo hadda way kasoo tagtaba gabdhihii yaryaraayaaba kabaha u gashtayba markaas guri dhisan markay arkaan waxay leeyihiin aniga ma ii dhisnayso qof aan dhisay ama keeda kasoo burburay ku kala ratay aniga taas waxaa waay gabdhaha midda ah uma maleynayo xaasid meel kastuu ku jiraa gabadhii wiil buu leeyahay laakiin anyway markaa reerkaada degan tahay oo waxaada hubsanin reerkaada marnaba ku dudumin wax xataa haddaa hubsatid oo aragtay in qarad lagaa galay soo hor fadhiista miiska wada hadalka waxaas maxay ku imaadeen fahamtay burburka ma fiicin waxaa qalad qofku u galaa laakiin waa ka celinaysaa yacaaleed waxaas kugu arkay ama waxaas isbedeloo jiro ama waxaasay ku imaan ama waxaas miyay qabataa miiska wada hadalka fadhiisanaysiin qof laakiin wuxuu kuu sheegay xataa weligaa xaajigaada ku weydiin saasaa maqlee maxaa ka jiro ilaa adi realitiga indhahaada ka qaadid cadeen u haysid markaas kabacdi aa weydiin karta asna waa inuu sifican kaaga jaade xataa dhacduu sameeyey inuu ku dhaho xasaas eed baa mistake ahayd mar damban ma sameynayay soo adina waa uga tanaasuleysaa life continue noloshiina sii wadanaysiin saas waaye akhyaarta maxaa lahay intaas waanooyin waaye waanooyinka waan soo badi doonaa si guryaha Soomaaliyeed u dhisnaadaan oo farxad iyo barwaaqo iyo barnaamij cunug kasta aabihiis uusa aaba kale uu arkin aabihiis nolosha la qaato waa wixii qadarta lagama tilaabsan karo mugta badanaa laakiin intii la isxakameyn kara in isxakameeyo waa barnaamijkan wuxuu ahaa sida ay qoysaska ku dumaan sababihiina waa sheegnay maxaa la dhahayay dhibaatada ka imaani kartana waan sheegnay in sidee loo daaweyn karo lagu hortagi karaana waxaa waaye mawduucaas mar kale insha allah ka dhiganaynaa waxaa hadda waqtiga nagu yar video waxaa inuu sii aada u mahadsantihiin akhyaarta waxaa waaye waa familkii quruxda badnaa halkan joogo محمد فرحي إذن له في أمان الله إن شاء الله فيديو كحي وحنون قندونا سيدي هذا وحيد سيدي قوس وبربرة
sidee maxaa dhihi Looga jiray hortagi qoyskaada loogu hortegi karaa uu qoys strong oo taagan oo waqti kuu socda hadduu ilaahay kuu qadar kuugu noqon doona kalsoonina iskugu qaban karta adii xaajidaada ama adii xaajigaada taasaa ka hadlaynaa insha allah soo fi amaanillah janaalka haddaa ku cusubta maxaa sameyne subscribe like and share haddaa nala joogi jirta nala joog haddaa hadda nagu cusubtaan soo dhawo please videodan sheegaree dhalinyaradu anfacaya insha allah iyo qoys kasta dhalinyaro bis maa qoysaska xataa isku dhiban oo anfacaya bye